وعند عوضيال سوريواد مركله قبل كهيران برتمها صوماليا أيام مركله وحو عجاها لقى إسقى قبص سياسة قبل كانوا وجهين مركي هربا دقال حوجان أورك الشباب وهو يماد سيدو كلام معوسلي ده قبل كاسي أو درر حوجان أي كلا ده حيسورك الشباب سيدو كلامه حرين أي بريق قبل كاسي هيران كدقالمي أهانا معوسليدي ugu horeysay ayaa magaca macawsley qaatay ila dagaalamo ururka al-shabaab ee si iskooda isku xilqaamo gabi ahaana damcaha amaba ay ka soo go'day in ay deegaanadooda ururka al-shabaab ka sifeeyaan amaba ay ka saaraan iyagoo ay cidna maalgelinaynin ayaa mar kale waxa uu gobolkani cagaha la galay isqa qabsi siyaasadeed oo taa ka weyn taas oo ah in gobolkan ay gudoomiyaashii hore kuwa haatan xilka haya iyo kuwa doonaya in ay haatan kadib ku soo biiro amaba xilkan rajo ka qaba mar kale haya waxay abuurayaan xiisad ka dhan ah gobolkaasi iyagoo mar kale ay dib u dhac ku keeni karto sidoo kalena ay habsaamin karto la dagaalankan ururka al-shabaab ee macawsleydan oo muddo 3 sano ay la soo daaladhacayeen marayana heerkii ugu fiicnaa dagaalka badankiisa waxa uu ka socdaa gobolka Hiiraan barigiisa halkaas oo Awoorey iyo Sooman iyo sidoo kale goobo kale oo hoos taga degmada Muqokori ee gobolkaasi Hiiraan ay mar kale isku farasaarayaan ururka al-shabaab halkan ururka al-shabaab ay Awoorey laga bixi kari waayay sidoo kale iyo Sooman goobahan oo buura ayaa mar kale dagaal xoogan macawsleydan ku dhaxmaraya taas mid ka duwan ayaa haatan gobolkan ka taagan iyadoo gobolka Hiiraan mudooyinkii ugu dambeeyay ay abaabulayeen ciidamo gobolkaasi uu go'oonay u yeesho sidoo kale inuu ka go'o guud ahaanba Hirshabeelle gobolkan oo ah maamulka Hirshabeelle ayaa mar kale waxa ay mudooyinkii ugu dambeeyay gadood ka muujinayeen in aysan helin qaybtii ay reer Hiiraan u lahaayeen Caraguud Laabe iyo guud ahaanba gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Hirshabeelle in aysan ka helin xuquuqdoodii sidoo kalena dagaalka ururka al-shabaab iyaga kaliya looga haray oo ay cid dawlad ama maamulka Hirshabeelle oo ka qayb qaadata dagaalkan lagu dhameeyay bariga gobolka Hiiraan dadkan degan aysan jirin iyagoo cabashadaasi qabo ayaa mar kale waxa ay soo cusboonaatay in gudoomiyihii hore ee gobolkaasi Hiiraan Cabdifataax Xasan Afrax uu ku dhawaaqo in guud ahaanba la wareegay gobolka Hiiraan magaalada Beledweyne caasimada gobolkaasi isagoo la wareegay maamulkii xerada iyo sidoo kale xafiisihii laga maamulayay gobolkaasi isagoo sheegay in gobolkan looga dhawaaqay isbedel siyaasadeed oo dhab ah iyo sidoo kale horumar maadaama uu yiri ay curyaamiyeen maamulka Hirshabeelle iyadoo taliyaha macawsleyda gobolkaasi Hiiraan Cali Jeyti Cuthmaan oo in badan sheegay sidoo kalena dhowr mar uu ku nuuxsaday in dagaalka kaliya looga haray gobolka Hiiraan uu la daalacay sidii mar kale ururka al-shabaab uu isaga saari lahaa iyagoo markii horena macawsleyda ay bilaabeen beeshooda halkaasina ay ka dagaal galeen ayna jecleysteen in ay iska saaraan ururka al-shabaab haddana aysan helin taageeradii dawladda federaalka Soomaaliya ay la garab joogi lahayd iyagoo gobolka Hiiraan in badan ku tilmaamay in la gacan bidixiyay guud ahaan aan helin gobolkan beeraha caanka ku ah in guud ahaanba aysan helin horumarkii ay ka damacsanaayeen garab istaagii dawladda federaalka Soomaaliya ay ka mudnaayeen guud ahaanba Hirshabeelle ayaa mar kale waxa ay wajahaysaa isqa qabsigan saameyn dib u dhac uu ku yeelan karo iyadoo ururka al-shabaab ay soo xoogeysteen guud ahaan gobolkani ay dagaalo ka dhacayaan gobolka Shabeellaha Dhexe ay guud ahaanba ururka al-shabaab ku sugan yihiin qaarkiis sida degmada Aadayabaal hase ahaatee arrintan gobolka Hiiraan ee soo cusboonaatay in gobolka Hiiraan ay gooni u goosan sidoo kalena haatan kadib aysan ka mid ahayn maamulka Hirshabeelle iyagoo halkaasina la wareegay xerooyinkii iyo sidoo kale goobihii laga maamulayay gobolkaasina haatan kadibna ay yihiin Hiiraan iyaga kaligood goonin ay isu taageen oo ay Hirshabeelle ka mid ahayn ayaa caqabad waxay ku noqon kartaa gobolkan sidoo kale la daalacaya dhinaca amniga iyo sidoo kale colaado qabaa'ilo oo soo noqday iyadoo shirkii wadashada qaran ee Muqdisho ka dhacay madaxweyne Guudlaabe uu qaatay in deegaanadiisa ay ka dhacayaan doorashooyin qof iyo cod sidoo kalena ay bilaabo doonto kaarka qaadashada dadweynaha taas oo la filayo in lagu gaaro doorashada qof iyo cod saacade taasi xaalkeedu ma jiro oo haatan mar kale ay gobolka Hiiraan waxay ka taagan tahay xiisan ku aadan in gabi ahaanba gobolkaasi uu ka mid ahayn maamulka Hirshabeelle kaligoodna ay isu maamulaan si kastaba ahaatee gobolkan Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya ayaa mar kale waxa uu la daalacaya la dagaalanka ururka al-shabaab colaado qabaa'ilo oo soo noqday fatahaado webiga iyo sidoo kale in mar kale xiisad siyaasadeed oo hoggaanka gobolkani mar kale uu la ciirciirayo wixii ka soo kordha halkan ayaad kala socon doontaan channelka subscribe iyo muuqaalka like saar mahadsanid daawade